maahan goob ku taala aaga ay maraan webiyada dalka ku yaala ee waa wadada Fagax ee Muqdisho oo maran muhiim u ah gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Waxaa si xad dhaaf ah u buuxiyay biyaha roobkii ka daay Muqdisho oo sababay biyaha xitaa in ay ka gudbaan xaafadaha saaran laamiga. Dadka deegaankan ma helin wax adeeg maamul ah oo wax lagu qabanayo dhibaatada wadadan ka taagan sanadaha badan. Biyaha roobka oo kaliya maahan waxa yaala halkan ee waxa jira shirkado ganacsi oo markuu roobku da'o biyo u kaysan raacsiya maamulada degmooyinka Kaaraan Yaaqshid iyo guddoonka sare ee gobolka Banaadir mas'uuliyiinta ka socda halkan kama daalaan in ay ku yimaadaan kormeer ay kaamirooyinka weeliyaan inkastoo dadka deegaanku ay sheegayaan inaysan jirin wax qabad ah oo kormeer ka dhaafsiisan. Dhowr mar ay booyadaha biyaha qaada ka gureen biyaha inkastoo iyadoo aan laga dhameyn laga tagay tan iyo xilligii guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir الله ونحريستي إنجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو عشور بحيال كل بان إن وحلوه قبط العجها لقى قاضي ويحقق الله ين دب لوجو سعريه وحسب دبك على قبضات كديجان كجال لي الاستعمال شو ضدنا وقاتي كتاجنين مران دبك كتير هل كان مو أنكر وقف كستي وحاسو أنكر وضياش الجديد كدوينها أو دبعت ضوء بدن وضدنا كوجها waxaana xusid mudan in wadadan ay sameerin mas'uuliyiin ka socda heer degmo iyo heer gobol waana sababta dadka deegaanka dhibaatada haysataan loo ogaan. Tusaale ahaan xilligii guddoomiyihii gobolka Banaadir oo ahaa Xasan Maxamed Xuseen Mungaab waxa uu isticmaali jiray wadadan waxay ahayd mid wax looga qabto nadaafadeeda had iyo jeer dadka deegaanku ay ku faa'iideen. Laakiin tan iyo xilligaasi ka dambeeyay waxa yareed wax ka qabashada dhibaatadan waxa sii kordhaysay dhibaatada dadka deegaanku ay wajahayaan. biyaha ayaa wali waxa ay fadhiyaan sanado badan godka laga qoday dhinaca midig ee laamiga taasoo lagu talagalay in biyaha roobka ay ku hooraan. Waxa ka dhalan karta xaalad khatar ah hadii biyaha ku jira godka oo haddaba buuxa ay u rogmadaan dhanka xaafadaha waa hadii si aan si degdeg ah wax looga qaban. dadka deegaankan ayaa sugaya sida maamulada degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshid oo kaashanaya guddoonka sare ee gobolka Banaadir ay uga falceliyaan wax ka qabashada wadada Fagax.